kadib duqeymo maalmihii la soo dhaafay laga fuliyay duleedka degmada Matabaan ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidanka daraawiishta gobolka Hiiraan waxay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanka Bukure oo dhaca degmooyinka Matabaan iyo Maxaas. Ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya daraawiishta dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo sidoo kale ciidamada macuusleyda ee ka howlgala deegaanka Maxaas ayaa waxay fuliyeen in halkaasi ay ku burburiyeen fariisin al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Bukure. gudoomiyaha degmada Matabaan Bashiir Cabdiraxmaan Sheekeeye ayaa ka warbixiyay markii uu soo idlaaday howlgalka qorsheysan ee lagu qaaday fariisinta al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi Bukure. runtii meeshaas waxaa ka dhacday weerarkii iyo maaragtay gaadmadii iyo xoreyntii meeshaas ay ugu talagaleen ciidamada dib u xoreynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Hirshabeelle oo iskaashanaya howlgalka sidii loogu talagalay ayuu u fulay sidii loo qorsheeyay ayuu u dhacay guushii aan maaragtay ka rajaynayno ka filaynana waa laga gaaray insha Allah taala waxaan rajaynaynaa meel walba oo ay ku sugan yihiin in sidaas iyo si la mid ah in looga howlgeli doono loogana sifayn doono runtii qasaarahooda aad ayuu u badnaay maantay qasaaro baaxad badan oo dhimasho gaarsiisan ilaa 30 kor u dhaafayso iyo dhaawac ilaa 70 ah ayaa meeshaas qasaaro ayaa ka soo gaaray meeshiina waa lagu soo afjaray. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa u mahad celiyay dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ciidanka daraawiishta gobolka Hiiraan oo hogaaminayay taliyaha ciidanka daraawiishta gobolka Hiiraan Axmed Dirir wuxuuna sheegay in dadka deegaanka Bukure looga baahan yahay ka qayb qaadashada soo afjaridda howlgallada looga hortagayo ururka argagixisada al-shabaab. sida uu sheegay gudoomiyaha degmada ayaa warbixintu ku kooban tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliiska Hirshabeelle ama daraawiishta Hirshabeelle oo ciidamada Hirshabeelle ka mid ah iyo ciidanka Soomaalidu ay u taqaanaan macawisleyda eray siyaasi maaha waa eray raqiisa ciidamada dib u xoreynta deegaanka Hiiraan baa la yiraahdaa magacaasay leeyihiin saddexda howlgal ciidana meesha ka howlgashay booliiska federaalkana waa lagu jira howlgalka oo uu ka mid yahay taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan